السلام عليكم أصحابتي كحران كان كداو سيدا أم بسوايب تيك فلوكس أصحابي عادي بارد رنتي إسلامي ملابا جوكتان رمضان كريم اللي هي يو عيدو معركة مادام عيدو سوى هي وكي أصحابي سلام كديب ضد بدن مرتي فرين إيسو دري أو إيسو قرية حكيت كدعادي الحمد لله أصحابي لبنتو في عني عادي بما سنتيتي فرين إيسو قرتي أصحابي سادو لسعوتي مركي هورا ودك يوغانا جوغي لكن هذا ودك قومس عن المحكولة شوي مكاليتها markaas xaabay vlogs ku saabsan wadanka Qubrus insha Allah waan inta diyaarin doonaa waana ka soo duubi doonaa vlogs aad badan aad rabtaan la socotid akhiran subscribe like share asxaabtooda waxaad saxaabay inta marka lagu soo gudbo maanta cashir aad u khatar ah cajiib ayay wadaa cashirka maanta ku saabsan yahay sidee baa WhatsApp-ka adigu online offline la iska dhigaa marka sometimes asxaabay waxa dhici karta inaad fariin ku soo qoro aanad rabin inaad WhatsApp-ka dhexdiisa qofka u jawaabtid because laga yaabo inaad rabid inuu qofkaasi ku arko inaad online tahay marka application waxay wada saxaabay application-kaas wuxuu ku dhibareynaa ama wuxuu ku fududeynaa WhatsApp-ka si offline ku isticmaashid marka application aad u cajiib ah message-ku toos ku soo dhaca toos ugu jawaabi kartaa qofka uma baahnina WhatsApp dhexdiisa saas fariinta uu qofka ugu jawaabtid marka saxaabay waxaan leeyahay mar labaad ku soo dhawaada kanalka Suhaib Tech and Vlogs hakii loo subscribe like share okay dhammaantiin marka hore waxaad soo furaysiin Play Store-ka markaad dhammaantiin soo furatiin waxaad sameynaysiin waxaad ku qoraysiin search-ka GB chat offline for WhatsApp ama waxaad ku qoraysiin GB chat off markaad ku qortiin uu soo baxo listigan application-nadan waa kana saxaabay ka ugu sarreeya ku qoran tahay GB chat offline for WhatsApp linkigan application-ka hoos aan soo dhigi doonaa hoosta keega okay dhammaantiin markaad application-ka download gareysaan open baa leedahay open markaad dahdiin asxaabay qaabka menu soo baxaya kadibna waa socon doontiin ilaa page-kan markuu idin keeno grant permission baa leedahay kadibna allow baa leedahay allow mar labaad haddana page kale idin keenaya asxaabay soo arkaysiin kadibna waxaad taabsanaysiin grant permission halka markuu idin keeno waa socontiin hoos ilaa intaad application-ka magaciisa arkaysiin GB chat off kadibna inta ma taabsan doontiin kadibna allow okay inta markaad dhamaysaan back baa leedahay waa soo laabanaysiin application ma ku soo laabatiin xaysiiskaas ay iska xiriirtiin xaysiiska markaad iska xiriirtiin asxaabay kadibna done baa leedahay okay xaysiis labaad baa soo baxay iska xirno xaysiiska labaad okay page-ka markuu idin keeno waxa leedahay let's go baa leedahay allow baa kadibna taabsan doonta allow haddana xagga muu ku keeni doonaa saxaabay waxaad taabsan doontiin later okay markuu qaabka idin keeno markuu qaabka saxaabay idin keeno imika waxaan ku tijaabin doonaa message noo soo dhaca WhatsApp-ka isla xagga muu iman doonaa automatic marka halkan fariinta waad ugu jawaabi doontaa okay saxaabay saad arkaysiin page-kii markaad saxaabay page-kan wuxuu ku tusayaa message-kii kaaga soo dhacay WhatsApp-ka ama group ahaato amba qof message aad ku soo diray labadaba ku soo diray saxaabay imika saxaabay haddii aad WhatsApp-ka uma baahnin inaad toos u gasho si aad fariinta uga jawaabto haddaad application-kan isticmaasho application-ka wuxuu kuu dhibareynaya si offline ayaad WhatsApp-ka ku isticmaali kartaa marka qofkii kale kuma ogaan inaad online tahay imika fariinta saxaabay toos baan ugu jawaabi karaa qofkii anigoo maaragtay isqabeynaya oo qofka kale maaragtay ogeyn inaan online ahay si toosan saxaabay ugu jawaabi karaa sadalkiisiin waa kan iyo haddaa rabtaa saxaabay codadka qaarkood waxa lagugu soo diri karaa iyadoo audio amba lagu soo duubay fariintii taana saxaabay waad dhageysan kartaa waadna ka jawaabi kartaa markaa saxaabay application-ka wala application aad runtii ugu khatar ah uma baahnin inaad WhatsApp-ka toos u dhex gashid saad fariinta ugu jawaabto application wuxuu ku dhibareynayaa si offline ah ayaad WhatsApp ku isticmaali kartaa qofka ama si qarsoodiya qofka kalena ma ogaan doono inaad online tahay ama inaad offline tahay haddii rabto message-kiisa waa akhrin kartaa kadibna waa iska dhaafi kartaa saxaabay markaa saxaabay application-ka faa'iideysan leeyahay linkiga application-kana hoos ayaan soo dhigi doonaa